kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qaybtanna haddii ay booyno weydmana waxaynu ku eegi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo go'aan dhabarjab ku ah Somaliland ka qaatay xubnaha ka soo jeeda deegaanadaas ee qaybta ka ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya sababtii ay u hakadeen socdaalkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa saacanood ayaa kamid ah eedaha imikan ay wajahayaan Somaliland oo qorsho la yaab leh u diyaarisay si lamid ah xubnahan oo dib ugu laabanayo Hargeysa sababta xilligan keenayso ayaa rabaa inaan muuqaalkan ku eegno oo aan isdul taagno waxa kale oo aan qaybtan ku eegi doonaa Cabdiraxmaan Cirro waxa uu gudbiyay dacwad ka dhan ah dawladda Djibouti yay tahay cid loo gudbiyay maxay tahay waxa ku qoran dacwadan ee uu gudbiyay Cabdiraxmaan Cirro wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka iyo dhacdooyinkii degdeg ah ee dhacay saacadii ugu dambeysay ayaa si lamid ah halkan idinku soo koobi doonaa intaynu ku guda jirno baahinteena waxaan kale oo aan isdul taagi doonaa wixii warar ah oo degdeg ah oo soo dhaco aan halkan idinku wadaagi doono soo dhawaada saaxiibayaal dhamaantiina haddii aad nagu cusubtiin nagu soo biira barta YouTube channelka aad naga daawanaysaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada nagu xiran aragtidaadana qaybta faalada ama commentiga ayaad kaga soo dhiiban kartaa la wadaag saaxiibadaada si ay kula daawadaan muuqaalkan hana iloobin inaad like gareyso muuqaalkan si uu dad badan u gaaro una hanano saaxiibo sidaadoo kale u wanaagsan hagaagkan ku bilaabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa go'aan dhabarjab ku ah Somaliland waxay ka qaadanayaan xubnaha ka soo jeeda deegaanadaas ee ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kulamo aan loo kala kicin oo xalay ka qabsoomay magaalada Laascaanood ee xarunta waa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari oo ay ku sugan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare xamse cabdi barre inta ugu badan xubnaha golaha wasiirada xildhibaano ka soo jeeda deegaanada waqooyi bari iyo Puntland iyo deegaano kale oo koonfur galbeed iyo Jubbaland iyo Hirshabelle iyo Galmudug ay qayb ka yihiin ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sababtii keentay in xubnaha golaha wasiirada ka tirsan ee ku sugan caasimadda Muqdisho ay qayb uga noqon waayeen socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee Laascaanood waxa warbixin arrintan ku qotonta soo bandhigay xubnaha sida dhow ula socda howlaha shaqo ee xafiisyada wasiirada ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi isla markaana ka tirsan xubin ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaare xamse cabdi barre waxaana intii doodan ay socotay la soo bandhigay aragtiyo ku qotoma in go'aano adag laga qaato madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa isla qaatay in xubnahan marka ay dib ugu soo laabtaan caasimadda Muqdisho gabi ahaanba xilalka laga qaado isla markaana lagu soo ogo dacwad la xiriirta in ay sameeyeen khiyaano qaran iyo inaysan diyaar u ahayn midnimada dalka oo ay Muqdisho ugu sugan yihiin in ay ka shaqeystaan hase ahaatee aysan ahayn inay u shaqeeyaan dadka Soomaaliyeed iyaga oo ku dulgambanaya micnaha la xiriira in midnimada ay baadigoobayaan waxaase xubnahan qaarkood la tuhunsan yahay in ay Somaliland xogo iyo macluumaad ku saabsan siraha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya la wadaagayeen haddii laga eriyo shaqooyinkii ay hayeen ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa adkaan doonta inay Somaliland xogta rasmiga ah ee dawladda iyo dhaqdhaqaaqeeda ku wajahan iyadu ay hesho waana tallaabo dhabarjab weyn ku ah dhinaca maamulka Somaliland ee hogaamiye Cabdiraxmaan Cirro xubnahan oo qaarkood dhawaan warbaahinta ka soo muuqday si aanan toos ahayn ayay uga hadleen qadiyadda Soomaaliya iyaga oo wax loogu yeeray garnaqsi sameeyay isla markaana tibaaxaya in Somaliland iyo Soomaaliya ay kol hore kala ahaayeen laba dal oo buhoobay isla markaana ay kala guumeysanayeen guumeystii Ingiriiska iyo guumeystii Talyaaniga isla markaana markii ay xorriyadu qaateen dhinacyadan isku soo biireen oo ay meesha ka saarayaan in laba gobol la kala ahaa sida koonfur iyo dhinaca gobolada waqooyi waxana xubnahan qaarkood aysan marnaba soo hadal qaadin aragtida ku qotonta in Israel halkaas ay ka yeelato fariisin weyn ama ku yeelato fariisin weyn oo military iyo in ay Israel u aqoonsatay Somaliland dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale waase waxay u dhaarteen oo kol hore dhammaan hay'adaha dawladda Soomaaliya ku soo galeen ee ay sheegeen in midnimada Soomaaliya ay baadigoobayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo wajiyadooda carro xooggan ay ka qaadeen arrintan waxa ay soo jeediyeen in tallaabooyin degdeg ah oo la qaado in laga maarmaan ay tahay xilligan adag
oo ay bulshada Soomaaliyeed isha ku wada hayaan dhaqdhaqaaqa guud ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana uu ammaanay oo uu bogaadin u soo jeediyay xubnaha kale ee goobjooga u ahaa caleemasaarka firdhiye iyo socdaalka midnimada ah ee ay laasacanood ku gaareen. Waxaana xubno ka soo jeeda dhinaca gobolka Awdal oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkan ku welinayay iyana ay dalbadeen in Awdal imikan si rasmi ah loogu dhiso dowlad goboleed Soomaaliyeed oo hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama aragtiyaha ugu badan ee shirkii caleemasaarka ee shalay laga jeediyayba ay u badneed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Xamse Cabdi Barre marka ay Muqdisho dib ugu soo laabtaan hirgelinta qaraaradan kadib, waxaa la filayaa in xubnaha ay saameyn doonto oo ay seeftu qaadi doonto ee ka soo jeeda deegaanada Somaliland ee socdaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare aan qaybta ka ahayn, balse loo sheegay inay isu diyaariyaan socdaalkaas haasaatee ka gaabiyey tagista laasacanood. Waxaa ugu horeeyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, gudoomiyaha maxkamadda sare iyo si la mid ah xubno ka tirsan isla golaha wasiirada sida wasiir Maareeye, wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige, iyo waxaa kale oo qayb ka ah oo aan safarkan ka soo muuqan isla xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo dhammaantooda wiilal Soomaaliya u dirtay warqadda casuumaadda rasmiga ah. xubnahan haddii xilalkooda laga qaado oo maalmaha soo aadan qorshahan laga karkariyo xalay laasacanood, waxaa wararku ay sheegayaan inay dib ugu laabanayaan magaalada Hargeysa ee xarunta u ah maamulka Somaliland. waxaana ay xubnahan ay cafis waxa loogu yeeray ay weydiisanayaan dhinaca hoggaanka maamulka Somaliland oo la rumaysan yahay in imikan gacan saar ay leeyihiin. hase ahaatee waxaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale xubno ka tirsanaa golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo marka ay muddada xilhayntooda ama xilalka laga qaado ay keeneen inay dib ugu laabtaan deegaanadooda. waxaase la rumaysan yahay in arrintan ay tahay mashruuc gaar ah oo ku maldahan siyaasadda Soomaaliya, isla markaana ay si weyn uga faa'iidayaan siyaasiyiinta ka soo jeeda dhinaca gobolada waqooyi. waxaana ugu dambeeyay Senator Dube, wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda waa maamulkaasi ka gadaal markii uu muddaxileedka golaha aqalka sare inuu gabaabsi yahay uu ogaaday, isagoo imikan iska dhigaya shakhsi kala shaqeynaya Somaliland aragtida la xiriirta gooni ugoosadka. waxaase dadka falanqeeya siyaasaddu ay rumaysan yihiin in xaalad adag oo siyaasadeed oo ay jirto uu kula daartay, waana kiiska dhinaca Israa'iil ee ay Somaliland aqoonsiga ku siisay oo ay fursad weyn u noqotay Dube in mar kale deegaanadiisa uu dib ugu laabto. halkaasna waxaa la sheegay in uu ka hirgeliyay dhismo weyn oo isagu leeyahay iyo si la mid ah ganacsi waaweyn oo ka dhex abuurtay magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah maamulka Somaliland. markan haddii aynu eegnana madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro waxa uu gudbiyay dacwad ka dhan ah dowladda Djibouti. madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro qoraal uu u diray qaar ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda dowladaha Ingiriiska, Mareykanka ayaa waxa uu dacwad rasmi ah uu ka gudbiyay dowladda Djibouti, gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle uu ku eedeeyay in faragelin toos ah oo la xiriirta jiritaanka maamulka Somaliland uu ku hayo imikan. waxaa kale oo warqadan qayb ka ahayd in uu abaabulayo Ismaaciil Cumar Geelle jabhado, isla markaana uu hub iyo gaadiid dagaal uu ugu deeqay, isla markaana arrintan ay halis weyn ku tahay geeska iyo guud ahaan degnaanshiyaha dalalka dariska la ah Somaliland uu sheegay in imikan ay tahay in si weyn looga foojignaado oo laga hortago. dacwadan waxaa ku xusan in Ismaaciil Cumar Geelle loogu yeeray shakhsi fawdo wada, isla markaana abaabul jabhado oo xoogan imikan uu ku howlan yahay. waxaana la sheegay in tallaabadan ay tahay mid ka baxsan shuruucda caalamiga ah, isla markaana ay Somaliland imikan ay wajahayso duulaan dhinacyo badan leh sida xogtu qoraalka ku qeexan laga soo xigtay. waxaana imikan dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska uu dacwadan u gudbiyay ilaa imikan aysan wax jawaab ah ka bixin. hase ahaatee waxaa soconaya dhaqdhaqaaqyo guud oo la rumaysan yahay in Djibouti ay ku lug leedahay oo maamul rasmi ah loogu dhisayo Awdal State, isla markaana ay dadka halkaa ku dhaqan odayaashii dhaqanka ah ee daneynaya arrintan lagu casuumay Djibouti. caasimaddu waa dalka Djibouti. Somaliland waxay ku qeexday qoraalkeeda gaar ahaan tan uu diray Cabdiraxmaan Ciro in Somaliland la kala qaybinayo
oo waxa loogu yeeray maamulo hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi laga abaabulayo, taas oo ay ku tilmaamayso in ay ka hor imaanayso sida ay qoraalka ku qeexday maamulka Somaliland jiritaanka Somaliland iyo diyaar garowgii ugu dambeysay ee in dunida dalal kale oo dhowr ah ay iqtiraaf caalami ah ka hesho. tani markii ay Somaliland wax loogu yiri aqoonsiga ay ka heshay Israel waxa saarnaa cadaadis gudaha iyo dibadda ah, iyada oo Djibouti ay si rasmi ah u garab istaagtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. danihii gaarka ahaa ee kala dhexeeyay Somaliland waxay ka doorbiday ilaalinta midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed oo uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud socdaal uu ku tagay magaalada Djibouti caasimadda dalka Djibouti waa magaalada Djibouti caasimadda dalka Djibouti. Ismaaciil Cumar Geele uu soo ballan qaaday in garab istaag iyo taageero lixaad leh ay siinayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wax kasta oo kala dhantaali kara midnimada Soomaaliya iyo Djibouti sheegtay in dhan ay iskaga dhigi doonto. safiirka dowladda Djibouti u fadhiya gudaha Soomaaliya xubno ka tirsan wasiirada isla dalka Djibouti oo shalay ka qayb galay calaamisaarka madaxweyne Firdhiye ayaa cadeeyay aragtidooda iyo mowqifkooda ku aadan midnimada Soomaaliya, waxna ay u muuqdeen kuwa bandhig siyaasadeed ka dhex sameeyay laascaanood, iyadoo uu gebi ahaanba soo afjartay rajadii ay Somaliland ka qabtay in Djibouti ay ku garabsiinayso in aqoonsi caalami ah ay dunida ka hesho. waxaase dowladda Djibouti uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu shaaca ka qaaday in dhowaan loo baahan la adkeeyo xadka ay wadaagaan dhinaca maamulka Somaliland oo ciidamo fara badan ayuu ku daadguriyay, wuxuuna amray in albaabada la isugu dhufto xafiiska ay Somaliland ku lahayd magaalada Djibouti ee caasimadda ah dalka Djibouti. tani markii ay soo ifbaxday in khilaafka xooggan ee u dhexeeya Djibouti iyo Somaliland uu banaanka yimid, waxaa gebi ahaanba culayskii siyaasadeed ee xoogganaa ee saarnaa maamulkaasi ku sii kordhiyay cadaadiska siyaasadeed ee Djibouti ku saarayso arrinta dhismaha Awdal State oo Djibouti la rumaysan yahay in waqti badan imikan ay gelinayso. waad ku mahadsantihiin ilaa gunaanadka muuqaalkan haddii aad la soo gaarteen waan idinkaga mahadcelinaynaa daawadayaasheena qiimaha badanoo waxaan idin rajaynayaa waan idinkaga tegayaa warsan iyo nabadgelyo.